runtii ganacsiga Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay aanan la shaqeyn oo shaqeyn weyn ay naga dhaxayso aadna aan ugu mahadcelinayo wasiirka iyo shaqaalaheennaba inaan rabnaa wasiir waxaan rabnaa in carwadii qaranka Soomaaliyeed oo aad saa hadda ka arkaysay ay tiimkan soo abaabulana anaga dhowr goor hore noo weydiiyeen haddana ay weydiinayaan arrintaas wasiir inay wasaaraddu u istaagto gacanna aan naga siisaan sida carwada qaranka ay gacanta ugu soo noqon lahayd wasaaradda iyo rugta ganacsiga si aan u helno inaan carwooyin joogtaa aan qabsan karno aad u dhib yar oo markasta position weyn iyo dhul weyn halkaas ku yaala wax badan noo qabsoomi doona insha Allah hadii la yiraahdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo tiimkan oo runtii shaqo abuurna sameeyay barnaamijkan ku dhiiraday inay saan u qabtaan ganacsatada ka soo qayb gashay oo ayaguna halkaan yimidna waxaan u rajaynaa inay guuleystaan oo ay ganacsigoodana in badan oo xiriir ay halkaan ka helaan in badanna ay wax ku kala gataan ayna faa'iidaan si ugu soo noqnoqdaan sababtoo haddaan wax isla samaysano dhammaanteen horumaraan wada gaali doonaa waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeedba carwada halkan ka fulatay suuqweynaha ee saddex biri socon doonta faa'iido idin tahay waxaa laga yaabaa markaad soo booqataan halkan aad timaadaan inaad ku aragtaan sheeyaal aydan arki jirin inaad meesha kala kulantaan ku gaataan sida hadda anaga laftigeena oo hadda aan arkayo in la kala iibsanayo buwaag iyo badeecooyin iyo moobeelo raqiis iyo alaab badan oo casri ah moobeelada nooca ugu dambeeya yaala dharkiya yaala badeecooyin kala duwan nooc walba yaala meeshaan marka waxaan rabnaa dadweynaha Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan inay saddexdaas maalmood aysan dhaafin badeecadaas raqiista ah inay u yimaadaan ay ka dukaameystaan meeshaan waxaa taala badeecad jaban oo lagu baranayo iyo xiriir iyo waliba adeeg lagu adeegi doono oo guriga lagu adeegi doono marka aad baratid oo telefoonada address ka qaadatid waxa aad ka dalbatay inaad heli doonto markaas si fudud ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaa iyaguna inay marna yimaadaan oo wax ka gataan marna ay halkaan oo kale iyaguna ay ka qaataan 6 bilood mar la qabanaa marka la qabto waxa ii muuqata hadda ilaa dhowr 10 dukaan inay marka ka dambeeyay inay noqdaan kontameey inay noqdaan marka dambana beerta dhanbe inay buuxsadaan rajeynaa marka meelo badan lagu qabtaa aan iskaashano salaan dabadeed runtii sharaf weyn iyo farxad iyo rayn ayay ii tahay anigoo ku hadlaya magacayga kan wasaaradda iyo kan xukuumadda intaba inaan idinkala soo qayb galo xafladan sida heerka sare ah loo agaasimay oo runtii lagu daahfuraayo suuqa muqdisho oo aan runtii aan leeyahay waa xaflad muhiim u ah habsami u socodka ganacsiga Soomaaliyeed kororka dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha intaba gaar ahaan dadka muqdisho ku nool iyo gobollada dalka intaba muhiimad ballaaran ugu fadhida marka runtii waxaan marka ugu horeysa anigoo raba inaan munaasabadda ka faa'iideysto aan rabaa inaan mahad ballaaran aan u soo celiyo hal abuurayaasha iyo hirgeliyaasha suuqan ganacsiga muqdisho oo ugu horeeyo gudoomiyaha iyo xubnaha kale oo runtii fikirka lahaa hal abuurkan soo jeediyey haddana hirgelintiisii runtii isxilqaan iyo juhdi weyn iyo waqti badan geliyey inuu suuqaani aan maanta joogno furitaankiisu inuu miro dhal noqdo oo uu dhaqan galo waxaan kaloo rabaa anigoo ka faa'iideysanaya isla munaasabadda inaan ayagana mahad ballaaran aan runtii halkan uga celiyo maalgeliyaasha barnaamijkan ama shirkadaha halkan dhammaantood lagu xusay oo ganacsatada Soomaaliyeed runtii la garab taagan mar walba hal abuur walba ama fikir walba oo la soo jeediyo oo runtii muhiim u ah horubkaca iyo kobaca dhaqaalaheena dalkeena runtii mar walba la garab taagan taageero isgarab istaag hadday noqon lahayd xag maaliyadeed
iyo hadday noqon lahayd xag dhiirigelin intaba marka runtii aad ayay u mahadsan yihiin mana aha markii ugu horraysay oo runtii shirkadaha dhiirigelinaya ganacsigeena inuu kobco ay dhiirigeliyaan suuqyada iyo carwooyinka carwo walba oo dalka la qabto ama horumar walba oo ganacsigeenu ku tallaabsanayo waxaa jira shirkado iyo ganacsi Soomaaliyeed oo runtii garab istaagan oo u hura xoolahooda oo u hura waqtigooda oo u hura maskaxdooda marka runtii aad ayaan ayagana ugu mahad celinayaa waxaan wadnaa dadaallo badan oo runtii lagu fududaynayo ganacsiga oo ay ugu horrayso inaan dib ugu soo noqonno suuqyadii ama isbahaysyadii Soomaaliya ay xubin hore ugu ahayd ama kuwa ay doonayso haddaba inay xubin ka noqoto hadday noqon lahayd kii Comesa kii noqon lahayd suuqa dhaqaalaha xorta ee Afrika hadday noqon lahayd suuqa ganacsiga adduunka kan geeska Afrika kan Afrikada bari kan Carabta iyo intaba waxaan kaloon runtii ganacsatada Soomaaliyeed rabnaa inaan u fududayno in ganacsigeenna habka ugu fudud loo samayn karo wasaaraddu runtii waxay wadaa dadaal lagu diiwaangelinayo ama diiwaangelinta ganacsiga lagu fududaynayo loogu sahlayo ganacsatada inay hesho adeegga ay u baahan tahay sida ugu fudud aan rajaynayno mustaqbalka in ayagoon wasaaradda imaan halka ay joogaan ay ka heli karaan ganacsiga shahaadooyinka ay isku diiwaangelin karaan wasaaradda halkaasna ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaan rabnaa inaan Soomaaliya ka soo qaadno meeshii ay shalay maanta joogto oo ah dalka ugu hooseeya xagga fududaynta ganacsiga oo runtii aan rabno inaan dadaal ka muujinno in Soomaaliya haddii ay dalka ugu hooseeyey muxuu ahaa maanta ay tahay inaan kor u soo qaadno sumcadda iyo sharafta Soomaaliya taasina waxaa fududayn kara ganacsatada Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay suuqa maanta aan joogno oo sanadkiiba 2 mar la qabto ama 6 biloodba hal mar runtii wuxuu ka mid yahay waxyaabaha fududaynaya ganacsiga waxyaabaha tusinaya in Soomaaliya ganacsigu ka socdo